madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa amray waaxda gaashaandhigga iyo taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom in inta badan ciidamada ay hantida Maraykanka laga soo saaro Soomaaliya horaanta sanadda soo aadan 2021 ilaa iyo hadda ma cadda tirada ciidamada Maraykanka ee laga soo saarayo Soomaaliya si yeeshee waaxda gaashaandhigga ayaa u muuqata inay soo jeedinayso in dhammaan ciidamada Maraykanka dib loogu meeleen doono meelo kale oo qaaradda Afrika ka mid ah waliba saldhigyo kale oo gobolka ah. Maraykanka kama baxayaan Afrika waxaa naga go'an in aan garab taagnaano oo aan taageero joogto ah siino saaxiibadana Afrika ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Pentagon-ka Maraykanka. Inkastoo la bedelayo booska ciidamada, ficilkan lama macno ahi in la bedelayo siyaasadda Maraykanka. Waan sii wadi doonaa inaan wiiqno ururada xaq jirka ay halis gelin kara dalkeena inagoo isla markaana xaqiijinayna inaan ilaashano faa'iidada istiraatiijiyadeed ayuu qoraalka intaas ku sii daray. Natiijada go'aankan dartiis qaar ka mid ah ciidamada ayaa la geyn doonaa meel ka baxsan bariga Afrika. Hase yeeshee ciidamadeena laga soo qaadayo Soomaaliya waxaa la geyn doonaa dalalka deriska ah si taas ay noogu ogolaato inaan sii wadno cadaadiska aan saarayno argagixisada Soomaaliya ayaa lagu yiri sidoo kale qoraal ka soo baxay Pentagon-ka Maraykanka. Pentagon-ka ayaa waxa ay sheegtay inay wili ay awood ay u yeelan doonaan inay fuliyaan howlgallo argagixisada dirir ah oo bartilmaameedsan oo laga fulinayo Soomaaliya ayna ururinayaan digniino horudhac ay waliba tilmaamaha halisaha ku imaan kara dalka Soomaaliya. Maraykanka ayaa waxa Soomaaliya ka jooga 700 oo askari kuwaas oo badankood ah ciidamo gaar ah oo gacan ka geysta tababarka ciidamada Soomaaliya. Dhammaan ciidamadan ama badankood ayaa waxaa la diray intii uu xilka madaxtinimo waddanka Maraykanka waayay Donald Trump. Inta badan ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya ayaa ciidamada howlgallada gaarka ah ayna kala joogaan dhowr saldhig oo kala duwan oo ku yaala gudaha dalka Soomaaliya.